xijaabkii baa la bilaabay waxaan garanayaa laba gabdhood oo garbasaaro soo qaatay isku daboolay xamar xaawo maxamed baa mid la dhihi jiray midna waxaa la dhihi jiray maryan cabdiraxmaan waa la xiray labadii maxay isu dabooshay baa lagu xiray waan soo joogay taas maryan way dhimatay allah u naxariistay waxay la dhalatay shay oo Soomaalidu haysato mujtamac haysta waa naadir tawxiidka wixii ka yar konton boqolkiiba 85 waa ahlu tawxiid mujtamac noocaas oo yar khaliijka laga yaabaa sacuudiga qaybo ka mid waliba sacuudiga shiicu leeyahay badan dacwadii halkaanay ka bilaabatay xijaabka intaa lagu tolay xijaabka intaan ka dhiibnay xijaabka Soomaaliya markii aan tolay asagoo tolan baan inta ka dhiibnay oo u dirnay Kenya xijaabka ana u jeedid asaaskiisa waa Kenya waxaana aniga haddaan daakiradaydu sax tahay maama Faadimo Saciid la dhihi jiray baa lagu tijaabiyey markaas Cabdullaahi Ali Xaashi baa warka laga heli karaa oo waan wada joognay war ma hal xijaab baan ka dhignaa oo madaxa ka bilaabmaya macna qaabkiisa ilaa hoos mise midkaan kala go'an waa lagu dooday waan garanayaa qaar waxay dhaheen dumarka Soomaalidu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله آدي آد بان إني سلامينا وحان رجينيا قيبتي هوري دكتور الشيخ محمد عثمان إن نكسو درجنا تاريخ ديسي معانيت ولا لبضن إني أسود عينا رجينيا قيبتان وقيب كلو عجيبة ما دام دكتور كويهي دادكي وهوري أم علماء وهوريسي dacwada Kenya ka bilaabay iyo dadkii ugu horeeyay ee qayb ka ahaa dacwada iyo baraaruga Soomaaliya waxaan jecelahay qaybtan in ayana uga dharagno socodkii dheeraa ee doctorku uu galay laga soo bilaabo Soomaaliya ilaa Europe, America, Australia iyo maritaankii Kenya iyo Afrika guud ahaanba oo in badan nooga taabtay laakiin aan ka celcelinayay qaybtan rabaa inaan ku fasaxo balse in badan ugu faagto dacdooyinkii cajiibka ahaa iyo wixii uu la kulmay dacwooyinkii wadamadaas tirada badan uu maray iyo Soomaalida caqabaadka maanta iyo barigii hore ka haysta dhanka dacwada doctor ku soo dhaweynaya marka koowaad marka labaad dacwada islaamka yaa laga rabaa maxaase qofka dacwada fulinaya shuruudo ku xiran dacwada islaamka qof kasta oo muslim waa laga rabaa qof kasta oo muslima inta tabartiisu leeg tahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ballighu anni walaw aaya hal aayad qofka hadduu garanayo inuu dadka gaarsiiyo waa laga rabaa laakiin si khaas ah dacwadu waxay saaran tahay culimada dadka wax bartay fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun dadka wax bartay ayaa laga doonayaa inay diinta faafiyaan culimada ah diinta la faafinayana waa diinta saxda ah وانا امر الهي ونسيي يعني هذا شغل كستا ادون كان كجرت ادا دونليه فون باد بوخنيسا waxa leedahay shaqo halaysi laakiin dacwada ilaahay baa iska leh subhanahu wa ta'ala ilaahay baa nafaray ilaahay baa yiri shaqada qabta waa shaqo ilaahay uu noo diray ud'u ila sabiili rabbika bil hikma ud'u fi'l amri shaqada qabta ilaahay yaa qabanay culimada qabanay dadka aqoonta la qabanay dadka wax bartay baa qabanay marka qofka waxa la weeyay qabanaya inuu waxaan uu gudbinayo uu yaqaano aqoon uu leeyahay marka qaarkood waxaad gudbin kartaa waxaadan aqoon u lahayn dhibaatad keeni karta ala sa'alu hina jahilu fa inma shifaa'u al-'ayyi as-su'alu bi nabiga ninkii soo dhaawac isku junubay leeyri biyo ku qubaysa qabo oo dhintay nabigu wuxuu yiri waa dileen Allah dilo kuwii buu habaaray laana qof jaahila marka qaarkood waxa laga yaabaa inuu wax qaribo marka dacwada ilaahay baa ina amray inaan qabanno waa amar ilaahay ah labana waxa weeye dadka aqoonta leh manhajka saxiixa haysta ayaa laga doonayaa dacwadan inay faafiyaan waayahay qofka marka taa waa qofkii dacwada in la faafiyo qiimo intee dhan ay leedahay marka faa'iido intee aleg shay kasta sharaftiis waxay ku xiran tahay shayga uu ku tacalluq dacwada ilaahay bay ku tacalluqdaa subhanahu wa ta'ala وشيء وشرف بدنوي لأن الله كون كأبوري يعني وحلا حريرة ويا الله بريه ولو حرية أمد يدين تاون أحسن يدغن كاون أحسن مركز شيء لقبته
shayga ugu sharaf badan wey oo maaragtay yani mihno la sameeyo mihnada ugu sharaf badan wey ummaddana waa yani ummadda ugu khayr badnayd culummadeeduna waa dadkaas khayrka badan bay ugu sii khayr badan yihiin marka waxaan dhihi karaa wax ka sharaf badan ma jirto dacwada islaamka waad mahadsan tahay intaas waan aragnay dacwada iyo qiimaheeda dacwada soomaaliya balnagee say ku bilaabatay sidaan kuu sheegay markii hore aan ku soo celinayaa anigu 74 baan dacwada ku biiray marka waxaa jiray urur la yiraahdo al-ahl oo nin la Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud asalkiisu galdogob ka soo jeedo oo madax noogu ah marka wadanka shuuci baa haysto waa la baqayo magac kale lama bixi karin ehelkii ka waran ehelkii maxay ku bariyeen wadanku maaragtay amnigiisu aad buu adkaa marka dad yar baan markaa ku ahayno isyaqaana oo isu furan markii dambe la batay laakiin waa la kala xirxiray qaar ciidan baa laga dhigay ehelkaas waxaan arkay dad badan oo aan ka run sheegaynin oo waxyaalo aan sax ahayn ka sheegay kana qoray markaas 74 baan anigu ku biiray oo beeca layga qaaday shaqo fiican baan qabanay oo ehel ku qabtay runtii oo dacwada ah aqoon badan ma jirin maaragtay maxaa la yidhaha laakiin shaqo fiican baa la qabtay iskuuladii meel kasta dacwadii waa la gaarsiiyey xijaabkii baa la bilaabay waxaan garanayaa 2 gabdhood oo garbasaaro soo qaatay isku daboolay xamar xaawo maxamed baa mid la dhihi jiray midna waxaa la dhihi jiray maryan cabdiraxmaan waa la xiray labadii maxay isu daboolsheen baa lagu xiray waan soo joogay taas maryan way dhimatay allah u naxariistay waxay la dhalatay doctor axmed xaaji cabdiraxmaan oo boosaaso lagu dili jiray doctorkii ninkii qiimaha badnaa allah u naxariistay walaashii bay ahayd maryan waxaana qabay ninka madaxda noo ah oo Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud ba xaaskiisa ah aydan waa dhimatay allah u naxariistay waxaan jeclahay umul quray ka baxday laana Cabdiqaadir umul qurub ka baxay marka Cabdiqaadir markaas nin diin bartay aqoon diimeed oo badan leh ma ahayn nin wuxuu ahaa tacliin caadi ah waliba haddaan khaldanayn nin talyaaniga wax ku soo bartay buu ahaa baan jeclahay marka saasay dacwada ku bilaabatay ehelkii kadib takfiirkii baa yimid takfiirka laftigiisana horta khilaafaadku iska jireen mar kasta maxaa la yidhaha dhinaca qabiilka oo mar kasta raad ku lahaa soomaalida oo u arkayay ninkan qabiil alif buu ka soo jeedaa aqoon badan oo diinaya ma lehe qabiil ba oo ka diin badan oo ka aqoon badan waxaa ka mid ah khilaafka Sheekh Maxamed Macalin oo markaa nugula jira xarakada oo ehelkii ku jira maxaa sheekha loogu dhiibi waayey maamulka xarakada hadda qofku hadduu sheekh yahana inuu wax maamuli karo in kale waa masalo kale wey takfiirkii baa yimid takfiirkii dhib weyn buu noo geystay waa la kala burburay doodii baa bilaabatay markaas Sheekh Cabdiqaadir wuxuu tegay saan jeclahay Qaahira shukri Mustafa buu la soo kulmay markaa takfiirkii Sheekh Cabdiqaadir baa noo keenay takfiirku marka 2 qaybood baa qolana takfiir rasmi ahaayeen qolana waxay ahaayeen at-tawaquf wa tabyiin bay la baxeenoo waxay leeyihiin qofkan imaamkan maaragtay gaalna uma qirayno islaamna u qirimayno ilaa xaalkiisa noo caddaado waan ka tawaqufaynaa markaan waxaan garanayaa xaramka markii aan tagnay 78 noogu horreysay xaramka dad badan baan la tukanayn imaamka oo laa ilaa imaamku xaalkiisu caddaado ma la tukanayno marka tawaquf wa tabyiin iyo takfiir baa la kala noqday oo maarag qaar tataruf bayba gaareenoo inay gaalaysiiyaan mujtamaca inayna cuntadii cuninin inayna maaragtay waxyaalo lamida taas marka halkaasaa burburkii koobaad dacwadii waa la soo baxay kenyaan isugu nimid laakiin waa kugu imaan doonaa sheegaygii baraarugaas aad hadda noo sheegtay iyo halkaas ay wax marayeen yaa sabab u ahaa ama shaksika is leedahay sabab u ah inkaas inay bilaabato wanaagaas la bilaabo yuu ahaa aniga si cad uma sheegi karo qofka bilaabay laakiin saan kuu sheegay nin la dhihi jiray ninkii nagula jiray doodii suufiyada cabdikariim xirsi meesha dabka la dhihi jiray buu wuxuu ka furtay xisbullah ma aflixin taas waxaa ku xigay qoladii aan kuu sheego wahaabiyada la baxday oo markaas sheekh nuur cali colow allah u naxariiste
sheekh maxamed sheekh xuseen iyo nimankaas waxay ku ta'aureen madrasadii jamaaludiin alafghani iyo maxamed cabdow iyo bay ku ta'aureen laakiin xagga caqiidada wahaabiyana hay dhihi jireen iyagaana wahaabiye rasmi loo yaqaan waxaan xasuustaa sheekh nuur waxaan kula kulmay Kampala 78 allah u naxariiste dumar wuxuu watay aan timo u dadnayn waxaan weydiiyey sheekh nuur oo gabdhahan timaha maxaad u dadi weyday marka wuxuu yiri timuhu cawra ma ah laano ma ahan jir waa xaskul oo kale ma aha waxaa qabay fikirka jamaaludiin alafghani iyo maxamed cabdow baa qabay madrasadaasaa qabtay marka xisbullahi waa ma aflixin qoladan wahaabiyadana ma aflixin qoladan xarakada abaa bilaabatay xoog ku bilaabatay waxaan isleeyahay 72 baan ku biiray qoladaas way aflaxday waa qolada sheekhuna ku soo biiri doono dacwada xoog galana Soomaaliya ka sameeyay ciidan bay galeen inay inqilaab sameeyaan oo markaas siyaad baraa inqilaabaan oo korneyle iyo jeneraal qaar baa gaaray tacliintii bay la wareegeen oo ay galeen waxay galeen dhaqaalihii Cabdiqaadir aw Muuse la dhihi jiray oo dhintay dhawaan Allahu naxariiste waa ninka kitaabka qoray oo waxyaalo badan oo saxiix ahayn buu ku qoray xagga ay lascaanood buu ka soo jeeday asalkiisa dhaqaalaha ninkaas hayay marka saxawadii markay bilaabatay waxaa jiray rag kale oo jaamacadda Madiina akhrisanayay oo naga horeeyay annaga oo maaragtay taagadaal baan ka hadli doonaa marka waxaa la dhihi karaa laakiin fahamka diiniga ah oo ikhwaaniga ah inkastoo nooc xoogaa ashcariya sheekha ku jirtay faa'iidada ugu weyn waxaa laga helay dhinaca fahamka sheekh maxamed macalin xasan allahu naxariiste dhinaca tajwiidkana sheekh cali suufi baa laga helay dhinaca naxwadana rag badan baa akhrinayay raggii waxa laga faa'iidaystay waxaa ka mid ahaa nin dadkan reer xamarka cadcadka ah oo hadda in Nairobi jooga aan jeclahay oo xanuunsan lagu yiri waa xanuunsan yahay sheekh muriidi la yiraahdo muriidi xaaji suufi la yiraahdo ninkaas markii sheekh maxamed macalin xasan la xiray allahu naxariiste ayuu wax bilaabay inuu akhriyo nin kale oo markii dambe qoladii takfiirka ku biiray oo asna xamar ka soo jeedo sheekh axmed nuur carab la dhihi jiray ayaa asna wax bilaabay akhris bilaabay saasay saxwadii ku bilaabatay kadibna ku xoogaysatay waayahay meeqa marxalad ay dacwada soo martay markaa marxalada ay soo martay aad bay u badnaayeen marxalo waxay ahayd marxaladii ikhwaannimada iyo aqoon yari badan baa jirtay laakiin wadata xamaas takfiirkii baa yimid oo asna marxalo ahaa fahamkii salafka saalixa ah baa yimid oo markaa fahamkii markuu yimid oo sacuudiga isugu tagnay qaarna raggii Madiina joogeen habeenkaas la kala baxayo oo saddexda qolo loo kala baxayo saddexda faham aan waan fadhiyaa wax la iga sheekeynaya ma waxaan fadhinay guri nin la dhihi jiray Cabdiraxmaan Sulub hadda waxaan xagga garow ku nool yahay laygu yiri Cabdiraxmaan Sulub oo Jidda baan fadhinay Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud iyo raggii ugu badnaa xarakadii ehelka way baxeen markaas ayagu waxay la baxeen qolada takfiirkii bay noqdeen oo way baxeen magaca takfiirka may ogoleen طبعا qolana waa qoladii salafiyiinta ahaa oo aljamaaca islaamiya la baxday oo sheekh maxamuud ciise iyo sheekh cabdiqaadir gacmi iyo cabdilcasiis faarax iyo maxaa la yiraahdaa rag badan oo maaragtay halkaas ay ku baxeen ragga saddexaad waxay ahaayeen oo raggii shirka fadhiyay sheekh cali doctor cali sheekh abukar oo maaragtay cali dheere loo yaqaano iyo sheekh maxamed yuusuf oo hadda kuwait ku nool intaan ku ogaa laba nin oo markaa jaamacadda ka soo baxay Madiina oo naga horeeyay oo markaa iyagu u arkahayay inay aqoonta diiniga ah dhalashahana sheekhaasha ah aqoonta diiniga inay ka leeyihiin Cabdiqaadir markaa nimankaana islaax bay la baxeen 78 habeenkaas saasaa loo kala baxay saddexdaa kooxood ayaa maaragtay gurigii sheekh Cabdiraxmaan Sulub Cabdiraxmaan Axmed Nuur baa la dhihi jiray Cabdiraxmaan Sulub gurigiisa habeenkaa lagu kala baxay waad mahadsan tahay xaalka dacwadeed ee maanta 2024 isku xir maxaa farqi u dhaxeeya waqtiga aad dacwada kusoo biirtay 1974 horta intaana isku xirinin markii habeenkaas saa loo kala baxay waxaa maaragtay samaysmay dagaal baa bilowday saddexdii kooxood
fikirkii baa xoogeystay jaamacadihii baa la galay waxaa bilowday maaragtay ixtikaakaad adag markaa 82 baa waxaa samaysmay itixaadkii. itixaadku waa qoladii salafiyiinta ahaa oo ka baxday ehelkii iyo raggii ku biiray iyo raggii waqooyi jooga oo xuddada ah ayaa sacuudiga isugu yimid 82 baa itixaad la sameeyey. itixaadku marka waa labadaa qolo inaad saa u fahamtaan la raba waa 82 sheekh cali warsamaan jeclahay marka in madax looga dhigay oo burca ka soo jeeday wuu dhintay allahu naxariista nin aad u qiimo badan oo aad u caqli badan aad u garasho badan odaya buu ah. marka itixaadkaas waxaan dhihi karaa qolo barakaysan bay ahaayeen jaamacada keliya oon u qiri kara barako itixaadkaas leanno waxa bedelay mujtamaca soomaaliga itixaadku ictisaabna ma ahayn takfiirna ma ahayn islaaxna ma ahayn waxaad mujtamacan aad aragteen bedelay oo diintooda u sugay oo meel kasta gaarsiiyey itixaadkaas waxa weeye xaraka mubaaraka ahayd. markii dambe dagaaladay galeen iyo taas waa xisaab kale. 5 shay oo soomaalidu haysato mujtamac haysta waa naadir tawxiidka wixii ka yar 50 boqolkiiba 85 waa ahlu tawxiid. mujtamac noocaas oo yar khaliijka laga yaaba sacuudiga qaybo ka mid waliba sacuudiga shiicu leeyahay badan iyo suufiya badan iyo waxaas. tawxiidka waa mas'alo muhiim ah. masalada labaad waxaa weeye salaada jamaaco la oogo adduunka soomaali baa ugu badan xataa sacuudiga waa ka badan yihin meel kastay joogaan atlanta meelayaan tagnay 3 kun baa salaad subax nin kasta gaarigiisa 5 buu ku soo qaadaya maasha allah. masaajidka sigiska waxaa la yidhaahdaa xaramka kadib jamaaco ka weyn ma jirto banaankaa lagu tukanaya. anaga hadda banaanka ramadaankii markii 3 masaajidkan buuxsamo dumarkii tahajudka waxaan u gogolaynay wadooyinka waa dumar ma arag salaada iyo say u ilaaliyaan. midda saddexaad waa qur-aanka soomaalidu waa ahlu qur-aan maanta qur-aanka dadka ugu badan oo xifdisan adduunka awal shanqiid iyo muritaaniya la dhihi jiray maanta waa soomaali maasha allah. waa waxa maaragtay xijaabkan aad u jeedaan oo adduunka o dhan maanta laga xirtay iyo niqaabkan soomaali baa keentay. maasha allah. sheekh albani baa wuxuu noogu yimid allah u naxariistay london xaaskiisaa la socotay iskaaf bay xirnay cajiib waa la doodnay waxaan ku dhiray Albaniga. waa ninkii qoray kitaabkii xijaab almara almuslima oo 8 shardi qoray asagaa qoray 8 shardi tiisana ma haysato yani iskaaf bay xirnayd iyo koorka dumarka suuriyaanta suuriyiintu dhaqankoodii bay markay thoobkii xiratay yay jubbad ka kor xiranaysaa jubbad midab leh dharka midab kalena anu ma dhaho xijaab xataa dumarkan soomaalida ee maryaha guduudan xiran iyo maryaha cagaaran iyo kuwa brownka iyo xijaab ma qabaan xijaab ma ah xijaabku waa kan madow xijaabku inuu madow yahay oo maaragtay niqaabka iyo xijaabka inay madow yihiin laakiin waxaan midabka ah oo guduudka iyo cagaarka iyo brownka iyo iska dhigeen dumarka soomaalidu kaa xijaab ma ah qaraabiibu suud inay noqdaan baa la rabaa buuro madmadow siday saxaabiyaadka ahaan jireen ridwaan ullahi tacaala calayhim. midda shanaad waxaa weeye xagga ganacsiga iyo dhaqaalaha waxaa xasuustaa waddada ijber road la yidhaahdo london ugu weyn hindi iyo carab baa ka soo jeedi jirta adduunka oo dhan dhaqaalihiisa maanta soomaali baa la wareegtay. marka 5 shay oo ilaahay siiyey subxaana wa taala waxaana isleeyahay dhaqaalahan iyo guurkan iyo awlaadan iyo xoolahan waxaan dhan waxaan isleeyahay waxaa lagu helay qur-aanka iyo salaada anisaa isleeyahay iyo tawxiidka saddexdaana inta kala keenta maasha allah. maasha allah. allah ku barakeeyo sheekhana dacwada east africa gaar ahaan dacwada kenya imaanshayahaagii wadanka kenya qiyaastii sanadkay ahayd bal qiimee waqtigaas dhanka tirada muslimiinta tirada masaajida macaahidda dugsiyada iskuulada jaamicaadka iyo weliba culimadii waqtigaa joogtay bal si guud inagu dulmar. sheekha waxaan ku leeyahay waxba ma jirin wax jirayba ma jirin 72kii way nala yaabeenba xataa waxa dadkii tukanayay la yaabeen salaantii bay la yaabeen salaamu calaykum bay noo bixiyeen xijaabkii bay la yaabeen waana la xiro waxaa la nimankan diin cusub bay keeneen nin markaa wasiirka arrimaha dibadda ahaa oo gaal ahaa oo munya wayaaki la dhihi jiray
oo markaa kursi keliya u ahaa waxaan kuraastan dhowl qaybiyey oo madaara iyo kamakunji waxaa ma jirin hal kursi oo madaara la dhihi jiray kursigaa waxaa ku fadhiyey nin gaalo Munya Wayaki la dhihi jiray Munya Wayaki wasiirka arrimaha dibadda ahaa ee Kenya waa dowladdii Kenyatta Soomaalidu qaadka la cunaa 8th Street iyo 9th Street markii la xiray oo Bangaali dala ku xiray yaali diin cusub bay keeneen waxaa loo yeeray laba nin waxaa la jiray Cusmaan Ararow sigisku ku dhintaan maqlay intuu madaxa ku dhifsaday asagoo weyse qaadanay nin soo islaamay buu ahaa oo islaamnimadiisu aad u wanaagsanaatay oo baarlamaanka galay oo diinta hoy u noqday booran buu ahaa iyo burji iyo aduu dadka Ethiopia ka soo jeedo Cusmaan Ararow iyo Munya Wayaki loo yeeray marka waxaan ugu doodaya niman ashraafa oo maaragta Allah u naxariisto Shariif Shoobe Allah u naxariisto waa dhintay Shariif Siyaad nool baan ku ogaa raggaasaan ugu doodaya waxay leeyihiin nimankan diin cusub bay keeneen Munya Wayaki markuu u weydiiyey wuxuu yidhi diintan cusub xaggee ka keeneen Shariif Siyaad baan jeclahay inuu ahaa ninkiis jawaabo wuxuu yidhi waxay ka keeneen Maka si waxaa moodaya diinteena inay Maka ka timide gaalkii baa yidhi marka dacwo ma jirin xijaabna ma jirin dacwadii halkaanay ka bilaabatay xijaabka intaa lagu tolay xijaabka intaan ka dhiibnay xijaabka Soomaaliya markii aan tolay asagoo tolan baan inta ka dhiibnay oo u dirnay Kenya xijaabkan aad u jeedid asaaskiisa waa Kenya waxaana anigu haddaan daakiradaydu sax tahay maama Faadimo Saciid la dhihi jiray baa lagu tijaabiyey markaas Cabdulla Cali Xaashi baa warka laga heli karaa oo waan wada joognay war ma hal xijaab baan ka dhignaa oo madaxa ka bilaabmaya macna qaabkiisa ilaa hoos mise midkaan kala go'an waa lagu dooday waan garanayaa qaar waxay dhaheen dumarka Soomaalidu ma fariisanayaan waa shaqaysanayaan aan ka dhigno midkaan kala go'an maaragtay qaarna waxay yiraahdeen midkaan Sacuudiga maaragtay xijaabkiisaas ku yimid marka dhaqaale ma jirin wadanka baabuurley goorta gudbinaysana dhiibiseen 78 baan dhiibnay ما شاء الله markaas dumarkaas khayrka badan oo soo sheegay yaa hoy u noqday dacwada oo waqooyiga ka soo jeedeen badankooda waqooyiga Soomaaliya masaajidka jaamiyada duhurkii subaxdii lug baan ku tagi jirnay bas kay bas service KBS kaliya jiray matatu ma jiro wax kale lacagna lama haysto lacagna wax haystaa ma jiraan lug baan ku tagi jirnay jaamiya moos lugna waa ku soo noqon jirnay markaas jaamiya marka inta lama ekeen maanta wax yar buu ahaa marka kaas qaybta hore kaliya way oo Cabdulla Shaah dhisay oo sanadka goorma ahaa 1925 baa asagu dhistay Ramadaan Gediyaaka baa ka tujin jiray markaa oo Kikuyu ah oo isku qabiil yihiin Kenyatta noola markaa ma dhiman Kenyatta Agas buu dhintay 78kii markaas Kenyatta waa nool yahay markaas xukunka asaga jooga kan Ramadaan Gediyaaka wuxuu dhalay nin asna dhiman jiray oo section 7 masaajidkan Fayabidi meesha la yiraahdo ninka Cali Ramadaan Gediyaaka asna waa dhintay oo marka Soomaali baa dhistay baan maqlay waa la dumiyay waa la dhisay ma arag wali muddadaas laakiin asagoo masaajid yaraan garanaya marka halkaasaan ku tagi jirnay 20 qof ka badan kuma tukan jirin ayaguna Hindi bay ahaayeen wadanka Hindi baa buuxday Xabiib Faaruq Aadam aabihiis nimankan Adamis Arcade Adam Mosque nimanka iskale aabahood yaa markaas jaamiya Mosque xukumay nin la dhihi jiray Professor Malik ma batirin kara Hindidii meesha joogtay boqolaal kumaan kun bay ahaayeen marka wax jiray ma jirin dhaqaale ma jirin dadka Soomaaliduna ma tukan jirin waxaan xasuustaa maalin baa nin anaga waxaan dhihi jirnay waan u yeernay Soomaalidii waxaan ku dhihi muslim ma tihidin gaala tihin maxaan gaala ku dhahay maxaa u tukan weydeen waxa la yiraahdaa anaga culumaan leenahay muslim baan nahay mana tukano idinka diin cusub wada ma diin cusub ma wadnee marka boqol soon baa asna mar loo yimid Allah yarxamu ilaahu naxariiste markaas wuxuu bilaabay bixiyay fatwa waxaan dhowr 80kii baa ahayd ma umalay 80kii baa ahayd aad ma xasuusto hilmaan baa igu jira boqol soon wuxuu yiri Allah naxariiste ninkan tukan haweenta la joogtaa nikaax kula ma joogto
haweenkii mid kasta boorsadeedii bay soo daftay boqolsoon guriga u kareeyey guriba u qabtay halkaasu ku ururiyey waa loo gacan qaaday mar iyo lababa oo la dilay arrintaa darteed allahu naxariistay marka wax tukanaya ma jirin quraan iska badaa markaas dacwadii saasay ku bilaabatay dacwadii raggii bilaabayna waa kuu sheegay xataa aadan garweynaa ka mid a allahu naxariistay raggii markaa aan alifka u bilownay oo maaragtay marka raggii dadaalay cabdullaahi ciise sheekh cukaash oo noo yimid mar dambe cabdullahi cali xaashi sheekh golos oo markaas xoogaa joogay oo intaana jaamacadda aadin saan kuu sheegay sheekh golos iyo sheekh buulow cabdullahi buulow iyo waa isku galaas baan ahayn kuliyatu xadiid waan isla dhiganay allahu naxariis sheekh golos qadar buu ku dhintay ninka naxwada dadka ugu badiyu ahaa marka saasay ku bilaabatay dacwadii dugsiyo qur-aan bay ku bilaabatay oo dumar ah dumarkaa lagu bilaabay kadibna maaragtay sidaasa masaajidadana laysuma ogolayn oo masaajida maanaan haysan oo masaajidadana looma ogolayn ya ma la dhisi karin miya maxaa lagu dhisaa la haystaa waayahay eydka mabatiya maxaa lagu dhistaa maaragtay waxbaba lama haystay qof qadayn karaa ma jire dacwana ma jirto culimo ma jirto annagu dhallinyaraan nahay yaryara marka annaguna midda kale safar baan nahay oo dee waxbarasha loo socda oo dee laakiin waa bilownay dacwadii dadna waa looga tegay dacwadii dhallinyaraha soo kacday marka xasan sigis nin la yiraahdo waa joogaa cali istareexi nin la yiraahdo waa joogaa raggii wax dhigaya cabdinaasir sheekh cismaan baa ka mid ah walaal ahayn oo ka soo baxay isna kuliyat alxadiid sheekh cukaash waan sheegay wax dhigayey sheekh cabdullaahi ciise waa jooga waxbuu dhigayey sheekh cabdullahi cali xaashi waa jooga waxbuu dhigayey ilaahu xasuusi maaragtay dad badan baa markaa wax dhigayey markii dambe maaragtay hadda rag soo baxana waa jireen sheekh maxamed haadi markaa waa joogaa laakiin wajeer buu jiraa oo markaa jaamacadda horu uga soo baxay oo sheekh maxamed haadi oo sheikh buu ahaa markaa horena wax usoo bartay ma garanaysaa laakiin niman hindiya aada wax u dhigayey oo markaa suhayb xasan oo tegey ingiriiska aaday laakiin dad soo saaray sheekh fatxudiin thankal oo hadda nool xaydar wuxuu ku nool yahay kerala xanuunsan oo asna markaas athi river wax ka dhigayey sheekh khaliil sheekh maxamed ibraahim markaa namanga hindidu marka waa siraaj uraxmaan nadawi oo markaa ciida amiin markuu hindidii soo eriyey oo markaa macad bilaal kambale ku hayay oo kisawni ninka bilaabi doonaa oo culimo waaweyn ka soo baxeen sheekh umal iyo sheekh shibli iyo sheekh calinuur macalin ismaaciil iyo ma tirin kartid raggii kisawni bay ka soo baxeen raggan aad ujeed xoogooda kisawni macadkaana waxaa bilaabay siraaj uraxmaan nadawi allahu naxariistay oo markaa ugaandho laga soo eriyey oo ciidda amiin soo eriyey marka annaga bilaal baan ugu tagnay macad bilaal buu joogay markaa meesha la yiraahdo jinja ayuu joogay allahu naxariiste waad mahadsan tahay hadda maxaa isbedelay hadda dacwada dacfi baa galay dacwadu way soo kacday nabiga alayh salatu salaam noo sheegay likulli camalin shira walikulli shiratin fatra bi nabiga alayh salatu salam camal kasta mar buu kor aadaa likulli shayin idaa maa tama nuqsaanu falaa yuqara biiib alcayshi insaanu shay kasta markii uu cirka tago hadda waxaa weeye adduunkiioo noo dhalaalay culimmadii xooggoodii oo dhaqaalo galay maaragtay culimmadii xooggoodii dhaqaalay galeen adduunkii oo la helay adduunkuna marba haddii la helo shidadiisuu wataa mashquulnimadiisuu wataa dadkii oo weynaaday oo faamilye ballaaran noqday oo maaragtay maxaa la yidhaahdaa qabaliyadii aada xoogeysatay iyo mandiqadii dadka qof kasta mandiqadiisii oo maaragtay oo aada iyo aad cilmigii oo batay oo maaragtay qof kasta isu arkaya inuu yahay caalim oon baahi loo qabinin social mediahii oo qof kasta wuxuu rabo khalad iyo beenba takaaharat idibaau calaa khiraashin famaa yadri khiraashu maa yasiidu shiica iyo yuhuud baa ka soo buuxisa waxaas la iska qaadanayo dacfi weyn baa yimid dhalinyaradii culummadii waaweyneyd oo da'da ahaa oo bay eedeynayaan
waxaan aada u jeclaystay sheekh cali warsame yaa burco isagoo joogaa dhalinyaro waxay ku dhaheen sheekh cali dacwadii waa ka baxdeen sheekh cali wuxuu yidhi magaalada burco saylad bay ahayd ariga lagu kala gato nin muadina suuqa ariga lagu gato masaajid ku yaala baa oday baa ka adimi jiray buu isagoo adimaya oo dhowr sanana xoolo la keenin oo adimaya ayaa wuxuu arkay ari lasoo tubay marka wuxuu maraya xay cala salaad xay cala salaad markuu maraya wuxuu arkay darashada ka arkay ari meeshii lasoo tubay seeladii muddana wax ma dilaalin waana muadin ku yaroo meesha fadhiyay buu ku yiri wariya xay cala salaad baan gaarsiiyey halka ka qabo xay cala falax ka qabo anagu dhalinyaradii waxbaan barno waxaan rabay inay xay cala falax ka qabtaano ayagu hawshii sii wadaan ayagana waxay ka dhammaan laayihiin odayaashii dacwadii waa ka baxeen odayaashaan guur badan baa galay caruur badan bay dhaleen odayaashaan da baa timid caafimaad darri baa timid mashquuliyaad baa yimid safkii labaad lama samayn waxay in saf labaad la diyaariyo oo safkaa labaad si rasmi ah dacwada ay la wareegaan ayagana markaa tiraa hadal wuxuu ku leeyahay wadaadadoo jooga ma hadli karo markaa de wadaadadu inay dhintaan bay sugayaan maxaa la yidhi mahamaadoo laga badiyaaye hal waxaa arkaysa ma godlataan maqle marka wuxuu ku leeyahay wadaad fadhiya ma hadli karo marka inta odayaashu iska dhimanayaan bay sugayaan baa umalayna laakiin waxaan dhihi lahaa waa in saf labaad jira saf labaad waa inay dacwada la wareegaan rag badan baa jaamacadaha ka soo baxay oo aqoon leh aan laguna mashquulinin dadkii hore khaladaadkooda iyo manaahijtan isdiidaysa oo hadda jirta inaan lagu mashquulin manhaj ah alqur'aan wasunna wamaa kaana calayhi saxaabatu min diin in manhajkaas la faafiyo waana lagu midoobi karaa manhajkaas manhaj waadixa wey qur-aanka ilaahay sunnada saxiixa nabiga alayh salatu wasalaam fahamkii saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waayahay sheekhna waa mahadsanta allah ku barakeeyo dacwada dadka aan muslimiinta ahayn ma is leedahay xilligan waa laga gaabiyey anigu masaajidka weyn waa anigii joogay dhowr iyo 10 sanaan mas-uul ka ahaa qeybta diinta jaamiya mosque intaana ka tegin dacwada dadka muslimiinta dadka soo islaamaya ilaa 18 markas baan u furnay 15 rag ah hadda ah markaas iyo 3 dumar kuwii dumarka ahaa waxaan u malayn hal mid baa ka hartay haddaana khaldanayn markas Caaisha kuwii raggana markaska Kambala ku yaalo Sheekh Yaasiin in la yahay Hindiya oo hayo iyo midkii hadda ugu weynaa oo hadda la furay la ogolaaday hadda in la furo oo Inguluuni meel ay ku yaalay Daarul Irshaad la dhihi jiray maraakiistii oo dhan waa la xiray sababta loo xirana waxay ahayd dad soo islaamay ayaa kuwan dagaalamaya la tageen oo dagaalkii geliyeen dawladdii marka waxay noo heshay layn ay ana ooyaya awrila buubay layn ay nagu dishay raadinaysa laynkii bay heshay marka tii baa la xiray maraakiistii marka aniga shaqadaydu taasayba ahayd markaan ingiriis ka soo laabtay shaqadaydu waxay ahayd dadkan inaan diinta soo geliyo waxna baro mujtamacoodiina ku celiyo oo maaragtay dad badan baa soo islaamay waxaan garanin maalin jaamiya mosque aan ka khudbeeyey ramadaan bay 97 ama 98 ramadaan mid bay saf bay ku jiraan dadkii ashahaadada u qabo boqolaal ramadaan markii dambe dadkii baa qayliyay Sheekh Maxamed waqtigii waa baxay salaadii jumcada oo salaadii oo dhan 5 daqiiqan ka dhigay jumcadii oo dhan maca khudbadii maca wixii oo dhan 5 daqiiqan ka dhigay dadkii wali dhammaan laakiin nimanka dhalinyarada oo dagaal geliyay dadkii dawladdiina ay layn noo heshay khaladaad ka dhacay dadkii soo islaamay iyo annagoo dadkii mutaabacayn weynay waxaa la rabay dadka in la qoro magacyadooda mutaabaca la sameeyo wax la baro dhaqaalo loo abuuro microfinance oo kale inta qofkii 5 kun oo 10 kun oo shilin 20 kun la siiyo la yiraahdo shaqayso oo maaragtay wax la soo bax anagu dawlad ma nihin dad waxaan nahay maaragtay masaakiin oo kala daadsan laakiin waxaan is leeyahay dadka soo islaamay shaqo weyn baa laga qabtay haddana weli way jirtaa laakiin sidii hore ma ah way jirtaa weli sida mid maalin weyta Soomaalida maagayay oo la yiraahdo Ibrahim Kikuyaah oo lahaa 3 cadow baan leenahay kii lahaa jaamiyo masaajidka sigiskaan shahaadada ugu qabanay asaga
masaajidka isagay 300 iyagoo ah lacag badanna waan siinay markii dambena waa ridoobay ceebtaana waa jirtaayo qaar baa maalinta jimcadana masaajidka jooga maalinta axadana kaniisadda laakiin inta badan way soo islaameen maraakiis badanna way leeyihiin dadkaas soo islaamay masaajidaan u dhisnay dadka ugu fiican oo soo islaama waa dadkan kikuyada la yiraahdo iyo dadkan jalwada la yiraahdo qaar badan oo masaayidu waa ka noqdaan thaqaafo adag bay leeyihiin calaa kulli xaal masalada waa masalo u baahan in ducaadu ka tashato oo dad badan oo soo islaamay oon helayn maraakiis wax lagu baro hadda ama aan helayn mutaabaco ama aan maaragtay guur helaynin gabdhihii waa masalo u baahan in guddi gooni ah oo ay ka shaqeeyaan allah ku barkay waa mahadsan tahay dad badan markii ay meesha su-aashaas waxaan u keenay dad badan oon islii lagu soo islaamiyey ama isbuucii hadda lasoo dhaafay tusaale ahaan waxaa dhacda in marka qofka lasoo islaamiyey meel la geeye la waayo oo qof meel wax ku barto uu waayo dabcan anigu islii gala ma u malaynaa inay ka jirto arag intaan ogahay meel khaas dadku wax ku bartaan oo la wada ogyahay aragtideeda ama waan haynaa waan ku siinaynaa ciwaankooda hadda daarul irshaad inguluni waa la furay hadda meesha ugu weyneyd bay ahayd ilaa dhowr iyo 60 dufca ka baxday ku taala ukambani dhinacan markaa way dheertahay halkaa meel lagu xereynaya weeye hawl ku xaroonaya boarding weeye la qofkii shaqaysanaya gelina wax baranaya in loo furo way tahay runtii waa u furi karnaa anaga hadda jaamiya mooska unbaa ugu dhow si la sheego jaamiya mooska wax waa lagu baraa laakiin islii ma ka jirtaa inta aragtidaada islii intaan ogahay kama jirto kasaraanina meel baan ka dhisnay ibraahim la yiraahdo waliba ilaahay sabab iga dhigay waa masjid iyo meel ay seexdaan wax ku bartaan ka cunteeyaan waa la geyn karaa kasaraani islii kama foga laakiin islii kuma ogi qof meesha uu shaqeeyay shaqada waa asli waaga wadankan inuu maqli jiray Nairobi baan u socdaa bay dhigi jireen dadka islii jooga townka markay u socdaan anigu islii waxa laga yaabaa sanadkan aan martago Nairobi ay tahay laakiin waa qaadaya mas'aladaas in culimada waan Sheekh Umar hadda waa safar buu jiraa Ethiopia markuu soo laabto waan asaga iyo culimada kale waan kala hadlaynaa in markas dadka lagu waxbaro muslimiinta cusub in islii laga furo baad u mahadsantahay sheekhana allah ku barakeeyo waxaad noogu soo gabagabaysaa marka Soomaaliya dacwadeeda waa noo faahfaahisay sharaxaad badan oo noo gelisay Kenya keentay dib noo sii celiyo gadaalna sii geeyo Yurub iyo halkaana gee waxaad nageysaa UK soo dhow wallahi Yurub dacwo fiican baan ka qabanay ani markaan tagay dacwo saasa kama jirin nimanka maaragtay Soomaali maba jooginba markaan tagay Siimaan baan ugu tagay waxaan xasuustaa 84 waxaan la shiray 8 nin oo mucaarad ah markaas siyaad bare hotel Mayfair ay deganaayeen Siilaanyo Ali Khaliif Galleer Abu Raas la dhihi jiray Xirsi Muuse la dhihi jiray Ismaan nin la dhihi jiray adigu cid qaar baan kala hilmaansanahay nimankaas mucaarad bay ahaayeen iyo Siimaan niman badmareen oo waqooyiga ka yimid badankooda dadka waqooyiga la isku dhaho isaaq dhulbaanta warsangeli baa ugu badnaa saddexda qabiil marka dacwadii halkaasaan ka bilaabay laakiin markii qaxootigu yimid dacwo xoog lahan bilowna jaamacadaha waan ka bilownay horta waxaa iyadana faa'iido weyn ahayd malik fahad allah yarxamu nin wuxuu ahaa diinta aad ugu fiican xagga yani u gargaarka diinta masaajiduu meel kasta ka dhis ducaadna wuu soo diray marka arduu soo diray Sacuudiga oo adigu 10 kun gaaraya marka Ingiriiska ardadii baa marka niman wadaada u badnaa nin la dhihi jiray Dr. Abdullah Al-Khatir Allah yarhamu iyo Abdirazaaq Al-Hamad Dr. Abdirazaaq Al-Hamad waa dhinteen labaduba Allahu naxar marka dacwo xoog leh bilaabeen dacwadii marka jaamacadka laga bilaabay ilaa iyagu masaajidana may haysan marka masaajido ayaa marka dacwadii ka bilaabatay anna masjidka East London baan joogay muntadahana waan joogay waxbaan ka akhrin jiray Parsons Green oo galbeedka London ku yaala masaajidka raabidadana khadiib baan ka ahaa ducaadna ma joogin wadanka wax ducaada waxaan garanaa intaan diyaarad qaato inaan Jineef ka soo khudbeeyo soo laabto wala way qof khudbeey ama Edinburgh inta tago diyaarad ku tago wallahi aan soo khudbeeyo soo laabto ama aan tago Holland Amsterdam khudbo wadaad baa la laayay marka waxaan sameeynay majlis dacwa fi Europa majlis dacwa fi Europa sameeyn magaalo kasta waxaan ka qaadanay imaam Ahmed Abu Laban waan inta Allahu naxariistay oo Denmark joogay rag baan inta keenay
marka waxaan ka dhigan Eindhoven marka dacwada London midda kale waxa weeye laba masjid baan ilaahay sabab iga dhigay inaan ka dhiso aniga ahantayda masjid Soomaalida hayso meel Whitechapel la yiraahdo ayuu ku yaala oo dadka reer waqooyi ka soo jeeda u badan oo anigana aan qaraabo la ahaayo aniga laba xaas baan guursaday sideeda yani dadka waxay dhalay ugu muhiimsan midna waa labada reer waqooyi caruurta maaragtay gabar habar jecel la yiraahdana waxay dhashay 6 afar wiil iyo 2 gabdhood gabar la yiraahdo habar awalna waxay dhashay 4 wiil iyo 2 gabdhood marka qolada habar jecelada iyo dadkaas waqooyiga masaajidka Whitechapel meesha u badnaayeen baan uga dhisay masaajidka labaad waxaan ka dhisay Cardiff waa magaalada masaajidka uu joogo Sheekh Maxamed Cabdi Daahir wadaadka la yiraahdo Sheekh Maxamed Daahir saaxiib baan ahayn muddo dheer oo maaragtay aad iyo aad isla soo kornay ingiriiska isla joognay waa ninka bariyahan aad uga hadlaa jamaacadka iyo itixaadka iyo akhdaadooda iyo ninka masaajidku joogo ilaahay sabaan uu iga dhigay markaas nin Maxamuud Qalin la dhihi jiray isna waqooyi ka soo jeeda yaa iga codsaday baan u dhisay ilaahay baan u dhisay laakiin ninkaasaan gacanta u galiyay kadibna sheekha ayaa la wareegay oo masaajidka haya Sheekh Maxamed Cabdi Daahir runtiina nin wanaagsan oo dacwada qayb weyn ka soo qaatay fikirku waa gooni oo qofku fikirka waa lagu kala tagi karaa oo waxyaalaha hadda ka jira manaahiijtan isdiidaysa maaragtay inaan laguba kala fogeyn baa dhici karta laakiin dadku fikir kala qabaan laakiin dacwada qayb weyn ka soo qaato Soomaaliya iyo Ingiriiska iyo Yurubba marka dacwadii waxaan dhihi karaa waxaan garanayaa qaxootigii Soomaalidu markay yimaadeen ruushkay tareenka soo raaci jireen waxaan garanayaa maalin aan Liverpool station meel tareen la yiraahdo aan ka soo waday magaalada London dhexdeeda waxa ku yaala station tareen oo leh Liverpool 56 qof baan ka soo qaaday meelaan seexiye iga rabaan cunta iga rabaan waxa iga rabaan maaragtay saasaan u soo qaadi jiray qaxootiga oo maaragtay markii dambena dhowr kun baa darsiga dhageysan jirtay oo markii dambe waxaan garanayaa meel sunni kaam la dhihi jiray oo Sweden ku taal qaxootiga ugu horeeyay waana waxyaalaha culimada Soomaalida ku amaano dumarkii iyo caruurtii soo baaba'ay soo rafaaday teenda umud cunto u diyaari caano u diyaari shaah u diyaari macallin quraanka u dhiga u diyaari markay saa u soo dageenba waan ku sugaynay meeshaan ku sugaynay wax kastaan u diyaar marka dacwadii saasaan Yurub u galay iyo Mareykanka dacwadii Mareykanka iyo Yurub saasaan u galay ilaahayna waa nagu guuleysiyay subxaanahu wa tacaala oo maantay Yurub haddaad tagtid Ingiriiska haddaad tagtid masaajidadii oo dhan Soomaali baa haysa dacwadii Soomaali baa haysa masaajidadii Soomaali baa haysa Mareykan waa saas Yurubta kale waa saas Oslo Finland Sweden Switzerland waa dhawat Switzerland nin sheekha weyn baa naga dhintay Allah u naxariiste maaragtay rag dacwada aan ugu tagi jiray oo la waday Switzerland Geneva iyo Lausanne iyo alxamdulillah waxaa loo baahan yahay in la taqyiimiyo dacwadii dibna loo soo kiciyo insha allahu tacaala way shaqana waa mahadsantahay Allah ku barakeeyo dacwada waqtiga dheer aad ku soo jirtay ama Soomaaliya daara dhaceedii badnaa ay la dibadaha aad nala aaday dacwadii iyo heerkay soo martay aad nooga sheekaysay xogaa dad baa weli dacwada culimada aad adigu kamid tahay dhaliilaya su'aashaasna waxaan jeclahay inaad si fiican u fiirisid oo jawaabteeda bal si fiican dadka u qancisid way dhaliilayaan oo madaahibtan iyo dadkan firqooyinka oo intaas oo kooxood Soomaalidii kala qabiil hal luqad ku wada hadla laakiin intaas oo yani firqa maanta u kala go'an u kala baxbaxay dadka qaarkii way ku eedeeyeen waxay dhahan qolodan baa bilowday in Soomaali la geeyo oo arinkaasi yani bulshada Soomaali la xgeeyo oo la kala googooyo la kala qaybiyo dacwadii kala qobanto marka bal soo dhawow culimadii waa kamid tahay dadkii dacwada bilaaba qayb ka tahay walaalaha arinkaas aaminsan in dacwadii ay kala qoban tahay maanta masaajidii ay kala xirxiran yihiin dad saaxiibo isla ahaa jira hadana ay kala go'an yihiin oo maanta is salaamaynin soo dhawow maxaad umadaas ugu jawaabaysaa horta manahijtan banaanka ka timid maaha wax Soomaaliya ka timid ikhwaan muslimiin Soomaali ma sameyn
salafiyooyinka kala socda Soomaali ma samayn kulligood waa manaahij banaanka nooga timid waaya afham banaanka nooga timid way marka caalamka oo dhan bayna ka jirtaa caalamka oo dhan bay ka jirtaa laakiin waxay ahayd Soomaalidu dadku waxay uga duwan yihiin waa dad dhiig kulul oo dadku ayagoo kala manhaja ay wada nool yihiin waxna isu sheegi karaan masaajidada ku wada tukan karaan dadkuna waa muslimiin way marka anigu horta waxaan in badan maqlaa dad badanna waa lay dhahaa su-aashaas sheekh Maxamed Cismaanow adiga iyo sheekh Umal iyo sheekh Shibli iyo al-shabaab idinkaa dhasheen ana shabaab maanaan dhalin shabaab sheekh Umal lama dhalin sheekh Shibli lama dhalin ana ma dhalin aabbahoodii hooyadood baa dhalay annaga waa la doodnay bilaan la joognay xamar axmed goodanaan la doodnay madaxdoodii baan la doodnay manaahijtii baan u caddaynay marnaba naga mid kamaanaan mid ahayn fikirkoodana marnaba maanaan qabin mid waa jirtay oo inay beeca jirtay in beeca la qaadi jiray in waxaas wixina waa baabeen hadda beeca la qaadana ma jirto aniga 93 baa igu dambeysay shuuradii caamka ahayd oo itixaadka baan ku jiray 93 baa igu dambeysay ka baxay macnaha manhajkii diiniga kama bixin laakiin waxaan ka baxay beeca iyo urur diimeed maanta sheekh maxamed meel ku jira lama arko maanu urur diimeed kuma jiro 93 baa igu dambeysay qolo ay ku xisaabsanayso goonay ma jirto maya sababta waxa weeye anagu ummadaas oo dhan baan culimo u nahay Soomaali baan culimo u nahay dadkan Kenyaankaan culimo u nahay kuwa Ingiriiska ku hadlaan wax barnaa marka aniga koox yar ma geli karaan anoo 100 kun 200 kun oo qof wax bari kara inaa iraahdo koox baan aho meel baan waqtigeedina waa dhamaaday beeca waqtigeedii waa dhamaaday kooxaysi waqtigeedii waa dhamaaday waa in la joojiyaa beeco iyo koox waa inay istaagtaa waa in ummaddu isu furnaataa laakiin manhajku waa inuu shaqeeyaa manhajkuna waa waadix manhajku aad buu waadix u yahay laakiin waxyaalo manhajka mararka qaadkood raad ku yeelanayaa jira anigu waxaan rumaysanahay khilaafka qayb ka mida waxaa keenay caydiid markuu dagaalkii lala galay dad badan baa ka baxay oo culimmadii oo yiri dadkayga baad la dirirteen markii Cabdullaahi Yuusuf dagaalka lala galay dad badan oo qaraabo ahaayeen baa ka baxay manhajki oo qaar baa ilaa hadda aniga islaamin oo igu cadaaweeyay Cabdullaahi Yuusuf dartiis ilaa maanta qaar baan wadaadda isla ahaan jirnay oo laga yaabaa inaan isku fahmi lahay yaan weli islaamin oo leh Cabdullaahi Yuusuf baad maarat Cabdullaahi aniga qabiilna kulama diririn xumaanna uma qabin laakiin manhaj baan ilaashanay caydiid qabiil kulamaanan dirin manhaj baan ilaashanay masalada dagaal ma la geli karaa mise lama geli karo waa masalo kale oo doodeeda u baahan lagana dooday duruus badanna laga duubay marka insha Allah haddaan wax kale lagu harin inaan ummadii midayno dacwadii midayno ummadii isu keenno manhajkii adkayno maaragtay tawjiih samayno badadaaleyna insha Allah taala Allah ku barakeeyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Sheekh Maxamed Cusmaan oo ku soo booqanay masjidka Ahmed bin Hanbal xaafadda isna ku yaala Soodsii martiqaadka uu noo sameeyay oo ku mahadsan yahay waraysiga quruxda badnaa ee labada dhinac u qaybsamay ee dhanna taariikhdiisa aan kaga hadalnay oo taariikhdii macaadineedna siiyey dhankii kalena uu nala galay badweyn dhanka dacwada ah oo Soomaaliya ilaa Yurub la geeyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waqtiga quruxda badan uu na siiyey iyo faahfaahinadaas quruxda badan uu na siiyey ugu mahad celinaynaa waxaan ugu nimid maadaama uu yahay dadkii dacwada saldhigga u ahaa dhan walbaba Soomaaliya Yurub ilaa East Africa Dr. aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waqtiga quruxda badan uu na siisay ilaa miisaanka xasanaadka ku saaro safiir islaam Allah ku barakeeyo hawl weyn baa wada dadkana waxaan leenahay hala dhiirigeliyo hawsha laana culimada in la ogaado noloshooda iyo shaqadii ay qabteen ayadoon faan ahayn si maaragtay taariikhda loo geliyo hawl weyn way barakallahu fiik jazakallahu khayr sheekh Imraan Caafad Allah noo kaasiyo salaamu alaykum rahmatullah Healthy Gate Hospital waxaa ka howlgala dhaqaatiir kala duwan sida dhakhtarka la soconaya hooyada uurka leh ilaa ay ka dhalayso iyo dhaqaatiirta caruurta oo isugu jira bukaan jiif iyo bukaan socod intaba sidoo kale waxay hayaan dhalada caruurta lagu kobciyo
waxayna furan tahay 24 saacadood. Healthgate Hospital ugu imaw shaybaar casriya. Ha iloobin farmashiyada daawadu u dhammaystiran tahay. Isbitaalku wuxuu ku yaalaa Urban Hotel, wadada Muratina Road, kasoo horjeedka Buwani Police Station. wixii faahfaahin oo dheeriya fadlan kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda.